Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Maya Beauty. Horta waan wala salaamay, iska wala warama, ma fiican tihiin? Alxamdulillah waan fiican yahay. Maanta videoga intaanan gelin videogan insha Allah hadda ii wala subscribe garan kartiin. I subscribe xaga notification button-kana bell-ka hadda ii taabsan kartiin saa inukuna markasta markaan video soo saaro uu nii soo dhacaya mobilka ayuu nigu soo dhaci doonaa. Maya Beauty baa video soo saartay maanta, marka insha Allah sida u miskareen amba sida uu ku daafin videoyaashayda insha Allah xaga taabso xaga ma nigu tusi doonaa taswiir marka iyo subscribe-kii waxaasoo dhan insha Allah isameeya. maanta waxaan ka hadlayaa topic saabsan finanka amba finanka wejiga dadka ku dhaca amba kasoo baxa. waxaan doonaa inaan ka yara sheekeeyo. anu maanta ma doonaa inaan ka hadlo productyaasha wejiga finanka ka baabiinaya because anu horta waxaan ogaaday qof kastaba wuxuu haystaa different skin kasta isku mid maaha. maybe videoyaasha kale soo socda hadda keeshankan waan ka hadli karaa waxa aniga iga baabiyey finanka amba waxaan jeceliya productyaasha aan jeceliya inaan isticmaalo. laakiin anu markaste waxaan aaminsanaa waxa qofka ku shaqeeya aniga waxaa dhici karta inuu igu shaqeyn, waayo waxaa dhici karta uu yahayba waxa weeyaan skin types waa wala different. dad baa oily skin haysta, dad baa dry skin haysta, dad baa dee skin type kasta waa different. marka heblaayo waxaa ku shaqeeyay waxaa dhici karta adiga inuu kugu shaqeyn, laakiin way fiican tahay qofku inuu iska eego maybe wuu dhici karaa inuu productkaasi wejiga finanka ka baabiyo. laakiin anigu markasta maskaxdeeda waxaan ku haysan jiray like anu ma doonayo qofka waxa uu isticmaalay, anigu waxa inaan raadiyo ingredientska aniga wejigayga u fiican iyo obviously skinkayga maadaama normal to dry skin yahay ingredientska ayaan baaray ingredientska u fiican wejigayga. waayo finanka ma qofku doono inuu iska baabiyo chemicalyaal badan amba waxaa dhici kartaa iyo acid iyo alaabaha khatarta ayaa ku jirta. marka wejigayga aniga waa very sensitive, marka qof qaadi kara miyihi waxaasoo kale amba kareemo cadar ku jira waxaasoo kale anigu wejigayga ma u daweeyo. laakiin maanta waxaan doonaa inaan ka yara hadlo san u prevent garan lahayn. prevent waxa weeyaan isku ilaalin lahayn inuu naga soo baxo. laakiin insha Allah inaguna waa inaan try gareeno. wuxuu ilaahay noo qadarana way dhacdaa, laakiin inaguna waxa weyn aan ku dadaalno sidaan iskaga yareyn lahayn finanka amba sidaan finanka iskaga toojin lahayn. wasaan yiriba laakiin ilaahay wax kaste uu qoran tahay. laakiin insha Allah bal I hope inay caawiso tipskan aan anigu qoray mobilkayga ku qoray. marka I think number one thing aan doonay inaan ka hadlo waxa weeyaan importance of biyaha. qofku inuu biyo cabo. biyaha qofku inuu biyo badan cabo waa very important. biyuhu wejiga aad buu ugu fiican yahay. qof biyo caba wejigiisana wuu qurux badnaadaa. sidaas horta maskaxdiina u sheega. wax cream iyo cadays iyo whitening iyo brightening iyo waxaas biyo ayaa ka horeysa. biyo maaha biyo iyo cuntada. cuntadu waxa weeyaan another thing oo dad badan especially Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan cunno bariis, pasta, waxa ku jira salt badan, milix badan. marka waxay dhahaan cadaanku greasy food, burgerka iyo waxaas iyo frieska iyo chipiska waxaas ma u fiicna wejiga. kaas waa number one thing ee dadka finanka kasoo saara. marka cuntada greasyga haddaa la iska daayo oo la cuno more cunto healthya sida fruitska, inaan iska cunno fruitska, khudaarta iyo vegetableka inaan cuntada ka dhigano aan cunno. bal try garee, maybe try garee 1 month try garee amba 2 bilood try garee. isku day inaa haddaa cuntid bal wejigaaga soo noqdo. ogowna wejigu haddaa for example weegan haddaa tiraadid weegan baan cunayaa cunto vegetable weegaas wejigu ma isbedelayo. waa inaa weeg kale siisid. weegaa kale haddaa doonayso waa iska toojin kartaa cuntada, ba weegaa kale ayuu wejigaagu isbedel sameynayaa. maaha weegaa doctorad baan ii sheegtay waxay iga tiri ma ogtahay cuntada cunisid inuu after 1 week soo baxo iga tiri. markaas maan garanayn inaa waxaas la haddaa imika bal wax cuno haddaa shokolaato imika cuno oo wejiga wax iga soo baxo waxaan isleeyahay because waa shokolaatadayaan maanta cunay.
maaha way dhici kartaa sometimes hadda allergy reaction aan igu dhaco allergy or reaction laakiin mostly waxa weeyaan after 1 week amba week ayuu wejigu markaa kutusayaa hadduu cuntada ka helay amba hadduu ka helin marka sometimes waa yaabaysaa waxaa arkaysaa wejigagoonu yar qurux badan laakiin waxa weyan weegii hore waxaa cuntay ayuu ka helay wejigu jirku. Another thing waxa weyan exerciseku waa very important qofku inuu sport ciyaaro, wejiga uu fiicno, maskaxda uu fiican yahay, bodyga uu fiican yahay, marka waa inaan ku dadaalno inaan exercise na sameyno marka saddexdaas waa the main top thing haddaa kaa sameysid I think your mindka relaxing stresska badan ma u fiicno wejigu mostly doctorku wuxuu ka yaranayaa are you stressed ma tahay like ma waxba is there any problem cause garanaya finankan way jirtaa hormonal reasonsku finanku usoo baxayo laakiin maanta waxaan doonaan ka yar hadlo asan u prevent garayn karno asaan ugu horiman lahayn finanka. Another tip aan yahayo waxa weeyaan qofku inuu iska ilaaliyo faraheena inaan wejiga taabsiino ma fiicno waayo faraheenu bacteria ayuu wataa especially haddaan wax taabsano aan maqdamana wejiga taabsano ma fiicno waa as simple as that dadku waxay moodayaan malaa waa wax aan cunay amba waa wax laakiin waxaa dhici karta is because markasta saasaan ma taabsanay wejiga laakiin dad kasta uu fareystaa aniga waan sameeyaa sometimes laakiin dad badan baa jira wejigooga taabsadaa ma fiicno wejiga isku taabsanina even haddaa aragtid fin wejigaaga kasoo baxaya please aan noqon dadka fin kasta u duujiya. I know waa very qofku doonaa inuu de iska dalooliyo amba iska babgareeyo laakiin ma fiicno wuxuu sameeyaa basically areada kale amba meel kale ayuu finkii bacteriaga faraha ayuu meel kale taabsanaya amba adaaba istaabsanaya meel kaloo haddana ka bilaabmaya bacteria amba fin kale marka gacmihiina ilaaliya insha allah apab garanina saa u tuujinina finanka I know dad badan baa ka hela oo de waxaa la dhahaa way jecelyiin inay sameeyaan inay just iskera I know waan garanaya marka laakiin inaan sameynha way fiican tahay. tip waxa weeyaan qofku inuu wejiga la meero wejiga inaa lagu meero face wash aad u fiican oo adi skinkaaga u fiican inuu qofku wejigiisa ku meero ayaa very 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 important waayo maalinta dan waxaad jirtaa saliid build up uu ku korkorayaa jirka ayuu koraa jirkeenu saliid badan buu sameeyaa as well marka way fiicantahay qofku inuu 2 jeer maalintii wejiga meero waan ogahay waan wasaysanaa laakiin waxaa fiican inaan productyaashana ku darno cleanser aan ku darno aan wejigeena sidaa ugu meerno on dee uskaga oo dan aan dee maantoo dhan dibadda markaan joognay usagii wejiga ku dhacay amba wejiga fuulay inaan iska meerno especially qofka markuu seexanayo in uskagaas oo dhan iska meero ayaa very very important marka waa very important qofku inuu iska meero also waxaan doonaa iraahdo tuwaalada ay isticmaalaysiin tuwaaladu ahaado tuwaale clean because wejiga waxaad marinaysid waa very important wejiga waa saan yidhiba waxaad dhici kartaa tuwaalkan aad marinaysid wejiga waa uskag marka prevent iska ilaali waxaasoo dhan tuwaal mar hadday isticmaashid amba mar hadday isaaran horta mar hadday isticmaashid iska meer because waa bacteria wejiga tawalka and then haddana wejiga hadda ku celinaysid waa bacteria baa sii fulaya marka is ilaaliya insha allah finanku saas inaan iskaga yareeno weeyaan amba finanka saasuu ku yaraanayaa finanku inaan iskaga ilaalino weeyaan especially as well makeupka inaan iska meerno haddaad makeupka markaan marsano inaan si fiican iskaga meerno weeyaan makeupka oo waxay nagu harin markaan seexanayno way dhacdaa sometimes dad badan oo makeup ku seexda as well kaas waa number 1 thing uu finanka ka yimaado waa makeupka lagu seexanayo marka si fiican iskaga meeraa cleanse gareeya double cleanse sameeya moisturizer fiican isticmaala laakiin cleansing clean waa very important inaa la barto sida loo clean gareeyo wejiga also makeup brusheska isticmaalisiin ahaadaan makeup brushes clean insha allah video waan sameyn doonaa sida loo clean gareeyo makeup brusheska laakiin iska clean gareeya makeup brusheskiina makeup brusheska waa arkaysaa dadku inay isticmaalaan makeup brushes product ku jira amba product ka buuxa waa unhygienic runtadan ii sheego waa very unhygienic waxaa fiican qofku inuu iska meero brusheskiisa I know
brusheska ayuu damage garayaa, laakiin anigu personally waxaan sameeyaa good quality fiican brushes ayaan iibsadaa, kuwa cheapka ma iibsado because what's the point, wuu kaa jabayaa. Marka waxaa fiican mar inaad iska iibsatid kuwa aad u fiican oo quality leh oo de kaa jabayn sida markasta u meertid, waayo ma fiicno qofku inuu 2 bilood meerin brusheska iska isticmaala markasta because finankaha ala iska ilaaliyo makeup brusheska daartiga ala iska ilaaliyo please aan iska ilaalino makeup brusheska daartiga, especially that is makeup artist as well, and makeup brusheska u clean ahaado waa very important as a makeup artist. Horta makeup artistku extra clean buu baahan yahay, plus maadaama ku jirno imika xanuunadan jiro waa khatar qofna wejigaaga inuu taabsan. Another tip waxa weeyaan marka wejiga la maarayo dad badan baa wejiga xoqa, wejiga ma hayna xoqdid, wejigaaga waa inaad doortid oo ilaalisid, you know, wejigu waa very important, ma la xoqo, ma la scrub gareeyo, you know, sidaa ma lagu sameeyo like dadku oh my god waa arkaysaa dad badan oo dee xoqaya wejiga oo dee no ma fiicno, wejigu ma jeclo waxaas, wejigu ma jeclo inaa si xun loo galo amba you know si xun, especially markaa meerisid ayar isku massage garee, face washka isku massage, you know, yar massage garee oo dee si self care waxa la yidhaahdo is, you know, wejigu wuu ka heli doonaa marka uu is clean gareyn doonaa. Marka insha Allah hadaa la practice gareeyo wejiga saan u doori lahayn, aan u clean gareyn lahayn, aan love siin lahayn, and very important. Marka I know waxaa jirta mashiino badan dadku isticmaala mashiinaha, you know, waxaa dhigta mashiinku inuu wejiga jecleyn, you know, hadduu qofku haddaa imika aduu finan haysatid waa inaa isku fiirsatid, waa inaa eegtid productyaasha ay isticmaalisid, waa inaa eegtid waxaa wejiga marinaysid, you know, maaha inaa ku wadid waxaad eegtid inaa isticmaashid baasha wejiga maada bal iska yaradaa bal wejiga markaa eeg, you know, eeg wejiga ma baashaas ayaa kuus garanaya after 1 week eeg, marka waa arkaysaa isbedel, waa arkaysaa wejigu because wejigu sidaa ku joogo little things like waxa yaryar, for example like inaa pillow caseka kanaan ku seexanano aan daamanka aan saarano inuu qofku iska bedelo, waxaa yaryar oo miiranna waa inaa iska ilaalisid oo you know hygienekaaga iyo meesha aa wejiga saarisid inaad ilaalisid oo inuu clean ahaado, waayo xaggaas ma dhici kartaa even timaha waxaa marisid, so waxaa dhici karta shampooga aa marinaysid wejiga timaha inuu wejiga u fiicnayn amba wejigu jecleyn, marka waxaas dhan iska eegaa perfumeka aa marsanaysid baa dhici karta wejigaaga inuu allergy ku yahay uu finan keenayo, saliida timahaaga, you know, saliida la marsanaya timaha ayaa kugu soo daadan kara oo wejigu markaa uu furan yahay poosku amba wejigu ma ka helayo oo waxaasaa keenaya finanka. Marka arrimo badan baa jirtaa waa inaad just u fiirsatid oo markaa ogaatid reasonka. Marka insha Allah good luck, insha Allah waa heli doontiin, laakiin waxaasan hadaa sameysid wuu kaa yaraanaya insha Allah. Marka saan yiriba productyaashaada waa inaad eegtid waxaa ku jira, way dhici kartaa acido, lactic acid, glycolic acid, benzoyl peroxide, xagga hoosaan kusoo qori doonaa, laakiin ingredientska waa inaa eegtiin, ingredients waa very important, especially anigu markasta waan ka hadlaa perfume, wax perfume ama cadar leh ma u fiicno wejiga, moisturizerka ay isticmaalisidna waa inaa ka fiirsatid, iska eegtid moisturizerka inuu wejigu u fiican yahay amba inuu wejigu u fiicnayn, waa very important. hadduu aad isku aragtid finan badan oo kaasoo baxaya moisturizerkaaga bedel, anu markas waan ka hadlaa moisturizerka aan aad u jeceliya waa CeraVe, waxna ma laho, aan horta waan ka helaa, waa very light and saliid badanna ma keeno, marka moisturizerka eeg, creamka ay isticmaalisid eeg, waxaad eegata cream qalada inaa isticmaalisid. Marka insha Allah intaasaan doonayay maanta inaan kusoo gabagabeeyo, insha Allah haddaad doonaysiin mask ama face maskna waan sameyn karaa video oo finanka yareeya amba you know kaababinayaba haddaan yiraahdo, insha Allah aad baa wala mahadsantihiin hadda xagga soo gaartay, aad baa umahadsan tahay inaan videogayga dhamaysatay, hayga iloobina insha Allah subscribe-ka haddaa subscribe ahayn ii subscribe garee, videogana ii like garee insha Allah.
waynoo marka dambe aan kamarada soo saaro insha allah. Xagga comments-kana igu soo qora waxaad doonaysa inaan ka hadlo insha allah. Iisoo sheega, Instagram-kana iga follow gareeya, Snapchat-kana iga add gareeya insha allah. Ila soo xiriira, iisoo sheegana waxaad doonaysa inaan ka hadlo next insha allah. anigu channelkan waxaan doonayaa inuu aad skincare-ka maadaama aan aad skincare-ka u jecel yahay aan ku takhasusay skincare-ka. marka insha allah waxaan doonayaa inaan saan yiriba waxaan anigu aqaano ama bartay inaan YouTube-kayga kasoo sii daaya insha allah. dad badan baa iga codsaday vlog, insha allah waan sameyn doonaa vlog. iminkaan edit gareynaya vlog aan ii sameeyey, laakiin insha allah content badan videoyaal badan baan soo saari doonaa insha allah. haga iloobin subscribe-ka haga iloobin insha allah. waan arkaa maasha allah dad badan baa ii subscribe gareeyey, comment-yaashana waan akhriyay. marka insha allah waynoo marka dambe aan sameeyo video insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.